إن شاء الله وحي سوق قارن إن شاء الله wax badan maanta ma doonayo inaan sheego waxaan rabaa inaan yaraa xogaa ka taabto arrin runtii aad iyo aad ila muuqdo inuu xasaasi yahay oo runtii ku habboon in wax laga yidhaahdo waxaa dhulkii ka socda siyaasada aad u fool xun aad iyo aad iyo aad iyo aad u fool xun aad iyo aad oo gebigeedu ay ku bays garaysan tahay ujeeddo qabyaaladeed ayaa ka socota waxa weeye xumaan bani aadam isu geysto kuwii halkii ugu dambeysay Soomaalidu ay maraysaa waana nasiib darro wacalaykum assalaam walaal soo dhawaada waad maqlayseen maanta ilaa shalay kambaniga weyn ee loo yaqaan Haas ee shidaalka keena waddanka runtii kambani aad u weyn aad iyo aad ilaah baa weyne alxamdulillahi rabbil caalamiin kaalmo fara badan ku leh iyo xafiisyo fara badan iyo business fara badan ku leh Afrika inteeda badan oo waa taqaanaan de kolley intii dadkiina dhulka marayay waad aragteen Haas Company Haas Petroleum Company International waa kambani weyn alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay barakeeyey kambanigana haddan taariikhdiisa idinku noqdo waxaa aasaasay saaxiibkay allah u naxariistee marna aan abtiga ama ilma abtiga ahayn marna aan ilma adeerka ahayn ilaahay naxariistiisana siiyo cabdirasaaq sujuu cali dheere oo hadda inaga hooseeyo qof bini aadam oo wanaagsan haddii uu jiro wuxuu ahaa kuwa ugu wanaagsan dadka wanaagsanna dee ifka kuma raagaan marka naxariistiisana allah siiyo saaxiibkay ama wiilkan abtiga oo ahaa ama aan ilma abtiga ahayn amiin idinkuna soo qoraa kambanigaas waa tis qaaday kambani aad u weyn weeye waa multi millions of dollars petroleum company weeye alxamdulillahi rabbil caalamiin sidaynu ognahay kambani ganacsata ah weeye kambani ganacsatiina dee meel walba waa jira hadda dahabshiil waa kambaniga isaaqa ugu weyn kambaniga albarakaad la yidhahdo waa kambaniga beesha hawiye ugu weyn kambaniga haas la yidhahdo waa kambaniga dhulbahanta ama hartiga iyaga inta kale ugu weyn ilaa wax walba halkiisa waa in la dhigaa marka kambaniyada noocaasee reeruhu ay eeganayaan ilaa qabaa'il baynu u kala noolahay diinteennu waa qabiil waaga markaynu kacno aynu soo kacnaynu idhaahdo alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaynu ku xejinaa qabiilkii yaa nool yaase dhintay waxay noo noqotay dhaqan bay noqotay jira oo usuala marka meelaha aan la iska taaban bay ka mid tahay sharikadaha dee hirgalay ee taaba qaaday qofkii isku daya inuu carqaladeeyo waa marka qof u jeeda dee qabiil dhan u jeeda simple as that marka taa waxaan u leeyahay xukuumadda Somaliland dee xaq iyo xeer uma laha inay dowlad ahaan ku ataagto kambaniga iyagoo ku eedaynaya war haasoo waxaad hubaysaan ama aad maamushaan ama aad dabada ka wadaan jabhad buhood la ka dhalatay oo dhulbaanta ah oo doonaysa dhulkooda inay xoraystaan ayaad haasay idinku aad samayseen abuurteen ka dambaysaan daba joogtaan waxaan malaynayaa inaanay xaq iyo xeer mid ahayn si kastaba ha u dhacdo waxaa saakay igu kalifay inaan meesha ka hadlo oo aan daba socda shalay tole ama daraad videogii aan soo duubay ee aan ka hadlayay ragga Somaliland u shaqeeya ee loo adeegsado inay tolkood caburiyaan ama cadaadiyaan ama ay xasuuqaan tilmaamaheedii waynagii soo aragnay wadinka arkayay nin la yidhaahdo xildhibaan dhakool oo u shaqeeya Somaliland xildhibaanka ah inuu laascaanood yimid isagoo askar wata dad islaamad dhulkooda intuu ku qabsaday xoog kaga qaaday cagafyaal gashaday wuxuu doona yeelay wixii la hadlana oo jeel iyo gudaha dhigay waad ogeydeen waxaa ku xigay ninka la yidhaahdo cambaashe iyo nin kale oo maxaa la yidhaahdaa hebel sugule la yidhaahdo isna ku xiga
labadaasina magaalada intii soo galeen bay aagag dhan oo weligeed badda deganaa gurya ka dhisnaayeen oo daara ka dhisnaayeen oo la deganaa bayana cagaf iyo balaynta geliyeen bay dhaan ka kaca meeshan waa zona militariga somaliland baa iska leh alaalaan kugu dhaarshay balka war militarigii muuse biixi ee beesha halkaa degtay dhexe ayaa dhulkaygii laascaanood aan dadka iyagu lahayn inta la xaadho la leeyahay qoladaasaa looga samaynayaa ciidamo iyo bays iyo meel ay degaan si ay ilaa qiyaamaha kuusii haystaan yaa la adeeganayaa kii aniga ila dhashay فايز دلعين هذرتي أوك السلام السلام عليكم ورحمة الله يا كودا أباي يا بيت ولا لا هاي سكلكم قريتي كلمة الرمضة اللي وحل أذيجنا يا أذيج مت كل هذا الشيء اللجوء أذيجنا يا سو قريجا كاجا قاضو دول كاجا قاضو هدو دون حتى ناكت هذا كاجا قاضو يوضا ننبش الدحاء أو يسقو شقيه حجلديدii hore waad ogeydeen oo af aad u qalafsan baan ku hadlay aad iyo aad baan u maagay dhulbaante guud ahaan baan u maagay gaar ahaanna waxaan u maagay qolada reer lascaanood waayo kuwaas waa kuwa ugu ficilka liita doofaarkana ficilaan baa loo cadaabaa waayo way ka gelgelan waayeen waxaan hadda waxay maraysaa bal dhegaysta intaanan faalladayda yaadho gelin shirkan maanta aan ku qabanayno shirkan jarayda maanta aan ku qabanayno xafiiskayga company-ga Haas Petroleum uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu daba socdaa shir jaraa'id oo maanta uu qabtay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta ee Jamhuuriyadda Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi shirkaas oo uu waxyaabaha uu kaga hadlayay uu ku soo qaaday shirkadda Haas kuna eedeeyay jariimad runtii mujtamaca reer Somaliland iyo dhammaan Soomaali meel joogtaba ay la yaabtay oo shirkaddan runtii ama kaab ku noqday anoo ku hadlaya marka hore magaca shirkadda Haas Petroleum ahna madaxa guud ee ugu sareeya shirkadda Somaliland waxaan bulshada reer Somaliland oo cadeynaya in ay tahay warka wasiirku sheegay inay ahayd jariimad ka dhan ah shirkadda Haas Petroleum ayna ahayd duulaan qaawan oo wasiirku uu ku qaaday shirkadda iyo ganacsiga iyo guud ahaanba dadka kombaniyada waaweyn ee dalkan wax ku oolka u ah waxaan meesha ka saarayaa oo aan tirtirayaa in ay haba yaraatee wax yar iyo wax badan midna ay ka jiraan waxa wasiirku ku hadlay uuna ku eedeeyay shirkadda in magaalada Buuhoodle oo aanan anigu shakhsiyan weligay arag meel ku taalo shirkadda iyaduna wax xafiisa iyo wax shaqaalaad midna ku lahayn in ay dhibaatooyin ka jireen shirkaddu lu ku leedahay arrinta marka hore waxaan daadafaynayaa inay tahay meel ka dhac ganacsi inay tahay mid diplomat oo ah wasiirka oo ah u hadlayay yani inuu mas'uul yahay oo qarankan ka mid yahay arrinta iyada ah inuu runtii uu si aan gabasho lahayn ugu bareeray shirkadda waxa uu kula kacay ficilka iyo meesha aanu u mari doono dhammaan mujtamaca reer Somaliland ee sharafta leh iyo dhammaan dadka dhageysanaya Soomaaliyeedba waxaan rabaa inaan u cadeeyo si xandaab adag loogu dhigo shirkadaha ganacsiga iyo dhammaan maalgashadayaasha dalka ee aan mar dambe ciyaar isaga dhicin in arrintan shirkadu ay u mari doonto xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaala in wasiirku uu qaadi doono responsibility-ga waxa uu ku hadlay iyadoo aan u marino maxkamadaha dalka iyo xeerarka dalka u yaala haddii uu cadeyn waayo laga rabo isaga in ay uu jawaab ka bixiyo ama in wasiirku uu keeno cadeyn u qalanta oo shirkadu ay noqoto taqaada responsibility-ga iyo wixii wasiirku ku eedeeyay eedamaha noocanihi waa eedeymo dadyowga iyo kombaniyada waaweyn mararka qaar ay wajahaan iyadoo ay salka ku hayso waxyaabo gaar ah oo aad u hooseeyo aan rabin halkan inaan ka sheego maanta laakiin waxaan rabaa ummadda Somaliland oo shirkadda Haas Petroleum aqoon fiican u leh oo shirkadani ay tahay shirkadii caanka ku ahayd maalgashiga dalkan oo ay tahay shirkadda shaqo abuurka iyo dalkan kaliya ee la majeerto marka laga hadlayo dhinacyada ay ka shaqeyso runtii in ay tahay duulaan aan ilaa iyo iminka aan ka hor dhacayn ilaa wasiirku uu cadeynta uu sheegay ee uu shirkadda ku eedeeyay inuu keeno
wasiirku wuxuu ka sheegay warbaahinta mar la weydiiyey inuu caddaynayo wuxuu sheegay inuusan wax caddaynahayn laakiin uu rabo inuu shirkadda eedeeyo dhammaan dadka reer somaliland ha daawadeen kilibkaas ereygaas annagoo daba soconna waxaan xeerbeytiga iyo intellectualka iyo ganacsatada iyo qaranka dowladda cid walba waxaan ka codsanaynaa in waxyaabahan oo kale inay tahay wax aan runtii aan laga sariigan karin oo aan la aqbali karin in markaa ama ay wasiirka raacdo oo had cad wasiirku uu qaado mas-uuliyaddeeda bulshada reer somalilandna ay aragto iyada oo wasiirku uu wajahay wixii uu nagu eedeeyey oo uu nagu waayey ama in shirkadda haas petroleum ay qaato waa meel ka dhac waa wax aan laga baaraan degin waa wax aan u malaynayo runtii inay u tahay dan oo ay xilli loo baahnaa timid in shakhsiyaad u malaynaya in mararka qaarkood iyo xilliyada qaarkood waxyaabaha noocan oo kale ahi ay cid kaga raali noqon karto inaanay ahayn wax lagu dhumaalaysan karayo runtii aad baan uga xunnahay mujtamaca reer somaliland ee sharafta badanna iyagana waxaan hubaa inay ku filan yihiin jawaabta wasiirka sababtoo ah shirkaddan waa la yaqaanaa anigana dalkan iyo qarankan iyo dadkan iskumaanu baran inaan shirkadda haas keliya aan mas-uul oo ka shaqeeyo waxaan isku barannay shaqo kala duwan waxaan isku barannay dhaqan walba oo wanaagsan iyo nabad iyo bulshooyinku iska daa somaliland in bini aadamka basharka ilaahay abuuray uu nabad iyo xurmo iyo koboc dhaqaale iyo mid dadeed iyo aqoon bulshooyinku ay ku koraan u baahan yihiin in lagu taageero taasayna haas ka shaqaysaa taasayna haas u taagan tahay haas waxay caan ku tahay bixinta iyo taakulaynta dadka danyarta waxay caan ku tahay bixinta iyo kharashaadka ardayda aan haysan fiiga ee meel walba jooga waxay caan ku tahay isu taagista akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo dhaqanka suuban ee nabadgelyadu ay kow ka tahay taas ayaana bulshadu ay ka tahay markhaati naguna taqaanaa aad iyo aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay jawaabtu way kooban tahay cadaaladda rajada aanu ku qabnaa waa 100% maaha 90%. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين واد مغليسين agaasimaha guud hadalkiisa sharikada haas si wanaagsan oo hufan oo akhlaaq iyo cilmi iyo maskax iyo xigmad ku jirto ayuu hadlay wax deelqaaf afkiisa ka soo baxay ma jirto wuxuu xitaa ka xishooday waxa ay ku haystaan ama maamulka Somaliland ay ka doonayaan sharikada anu maamulka Somaliland marka aan leeyahay waxa weeye wasiir iyaga kamidi marka uu talaabo qaadayo talaabo Somaliland ay leedahay buu qaadaa talaabo ay raali ka tahay buu qaadaa iyaga ayuu ku shaqeeyaan nidaamkooda iyo dastuurkooda iyo habdhaqanka maalin walba ka soo baxa guriga madaxtooyada ee Hargeysa ee Somaliland waayo xafiiskiisu waa halka subax walba Muuse ayuu dhinac fadhiistaa Muuse Biixi soomaad garan marka afka uu ku hadlayo waa afkii Muuse Biixi taasina maxay markaa daliil u tahay ku tusaysaa waxa weeye beesha la yiraahdo jeeganta Hargeysa dagaalka ay ku hayso beelaha bariga ma yaryaraysi male nooc walba ayuu leeyahay waa dagaal physical oo lagu imanayo hubkii oo la sito oo lagu xasuuqayo oo lagu argagixinayo oo lagu cabsi lagu gelinayo iyo tii dhaqaalaha oo lagala dagaalamayo sharikadan haas warkeeda waad qabtaan waa shirkad aad u ballaaran oo Afrika oo dhan ilaa South Africa meel walba ku teedsan ilaa iyo Sudan iyo meel walba Africa oo Central Africa all the way to East Africa to South Africa waa company established way waxa weeye hadii ay bakuroy waa corporate company way kuwa loo yaqaano isagii iyadii baa la doonayaa in dagaal lagu qaado oo la baabasho oo dhulka lagu dhufto oo dhaqaalaheeda la xuriyaasho marka waa in marmarsiyo iyo meel loo soo maro la helo si looga xidho ganacsiga ay Somaliland ku leedahay marka waa dagaal dadban oo lagu hayo beelaha ay ka soo jeedahaas meel kale oo loo dhaqaajiyaa ma jiro waxaan u malaynayaa hadalkaygu ciddu ku socdo way isgaranaysaa dagaalku ma yara waxaan idin daarayaa tii labaad baan haddana idin daarayaa iyo sababta ninkan wasiirka howlaha guud ee Somaliland iyo guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi
oo isna nin dhulbahanta oo reer buuhoodla ah dagaalka caddaanka uu ku qaaday sharikadda lagu magacaabo madaxeeda inay tahay beesha dhulbahante ama asaaskeeda leedahay ama inta sheerarka ugu badanba ay leedahay dagaalka uu ku qaaday waa nin gurigiisii loo soo diro qaraf iyo kibriid inta loo soo dhiibay la yidhi orada gurigiinni soo gub marka waa nin suicidal waa nin isagu kusoo talagalay inuu meeshu doono ku dhinto waxba kama duwana kuwa inta balaayo lagu soo xidho la yidhaahdo gala magaalada wax qarxiya waxa la yidhi wuxuu ka duwan yahay ma jirto haddaba sababta uu ku galay sharikadda aynu eegno ama sababta ay sharikadda ay ku gashay somaliland aynu eegno somaliland sababta ay ku gashay sharikadda haas bal hadda iyana aynu eegno waaye ilaahow maanka iyo caqliga midna noo waaye waxaan u mahadcelinayaa awalan dadka i daawanaya ee tifiyada iga daawanaya waxaan mahad labaad u celinayaa wariyayaasha iyo idaacadaha tviyada nagala soo qayb galay xafladan ama maaragtay munaasabadan oo macnaheedu yahay ka jawaabid wasiirka howlaha guud qambi idaacadaha wuxuu maanta kaga hadlay waxaa nasiib darro ah oo runtii wax laga xumaado ah oo baryahan shirkadaha soomaalida tahdiidka ku dhaca ee ugu badan ay noqotay qofkii ku cadhoodaa inuu yidhaaha laba shay ama maamulada dowladaha jira yaan kaa dacaadeynayna kugu sii daynaynaa dacaayad ama uu yidhaaho waxaan kuu sheegaynaa inaad tahay argagixiso al-shabaab labadaa nooc iyay dadku soo bandhigaan oo ku hanjabaan inay dadka wax ku yeelayaan ninkaa wasiirkaa doorkii dhawey meesha la yidhaaho addis ababa iyo anagoo talansida waxaan ku kulannay hodheel addis ababa ah isaga horta waxaan waa laba nooc ilmaadeera oo wax badani ka dhexeeyaan xigta ah xidida xigaala yaanu nahay oo meesha waxaanu isugu nimi isku aragnay hodheelkaa uu deganaa annaga markaa soo dego transit ku ahaa waa issalaamay waxaana dhex martay qisadan aan idiin soo wada hadda waxaa dhacday isaga laba nooc ilmaadeen saasaan horta isku deegaan baan ka nimo magaalada buuhoodle yaanu u wada galno waa isnaqaanaa ka ab waa isdad yaqaanaan waxaan rabaa awalan inaan shirkadda beri yeelo iyo naftaydaba annagu waxaanu nahay ganacsato siyaasad iyo ganacsina meel ma wada galaan haddaan doonayo siyaasad mansab ahaan iyo magac ahaan labadaba kaan doonaan makaanada laga raadiyo siyaasadaha kaga heli karaya mase rabo oo siyaasadda ma socdo nin ganacsadaa baan saa la ajiga annagu wixii ku jira siyaasad ee dadkaa deegaanka aanu ka wada nimo ah meeshay doonaan baa kaga jireen ma farafaraysano farahan lama galno jabhadahan uu sheegayay jabhadna ma galno lacagna kuma bixino lacagna kama qaadano hunguriga kama raadino waxaanu isugu nimi qambi magaalada addis ababa markaan isu nimi qambi wuxuu ii salaamay dad ilmaadoon oo ehel oo dee meel ka wada yimi baan ahayn wuxuu i weydiistay inaan wax taro oo wax siiyo nasiib darro gacanta waxa markaa kuma hay waan sii yaro wada fadhinay hadalkaana gaya ka taagtaagmay wuxuu igu xujiyey eedayn ah waad arki doontaa waan iga cadhooda waraa dee deegaankayga ma joogo magaalaan marayay meesha kugumaan talagelinaadeen u kaadi ninkaasi wuxuu la dagaalamayey dadka yacni qiimihiisa aad ku garanaysaa wuxuu la dagaalamayay halkaa noo geeyey waa shin yar oo shaxaad wax kale oo noo dhexeeyey ma jirin sharaf iyo xigmad iyo ehelima noo dhexaysa jabhad iyo cidaan abaabulay iyo cidaanu soo dirnay iyo cidaanu agaasinay toona horena uma dhicin hadda uma dhacayso shaqo kuma anugu jabhada waa ganacsataan nahay shirkaddu waa runtiis waxay joogtaa afrika oo dhan bay joogtaa ilaa saylac bay joogtaa dalkan soomaaliyay joogtaa yacni shirkaddu waa shirkad ballaaran waa shirkad soomaaliyeed laakiin dee irsaaqda ilaahbaa baxsha inuu u raadiyo qaabkaa irsaaqda waa qaab aada u foolxun waxaan leeyahay somaliland marka waa ninkaan mansabka u dhiibateen haddiiba garashadiisii ay siinayso inuu
shirkadihii deegaanka uu dhashay ka soo jeeda intuu ku faan lahaa ay siisay garashadiisii inuu ku sheego jabhad bay wadaan iyo kanay wadaan waa nasiib darro ninka saasa waxaad ka sugaysaan inuu gobol idiin hayo waxaad ka sugaysaan inuu masalo deegaankii uu ka yimi waa nasiib darro isagana waxaan leeyahay inaadaan shaxadku inuu furaya daadaad iyo manasahiimo laakiin waxa aan munaasabka ahayn iyo dacaayadda inaadaan waa inama kala qabato ka daabaan leeyahay maan sheegeen waxa ay kaliftay inaan sheego oo xanuunka iga keenay runtii afkaygana ma aha afniweyna ma aha waxa iga keenay waxa weeye xaqiiqdiis intaasaan dhex martay intaas markay dhex martay jawaabtiisii tanay noqoto marka nin gabaygiisiiba sidaa ilaa xadkaas ah oo shilinkaayan u dilaya qof soomaaliyeed oo la deegaan oo cid iiga dhow aanay jirin miyaad u malaynaysaa inuu beela ku xasilinayo ama meel kusoo xasilinayo waa nasiib darro anigu waxaan leeyahay ninkaasna jagadaa loo dhiibay uma qalmo ha laga fiirsado yuusan dhibaato u geysan ummadda soomaaliyeed ee kalena ee halkaa ku nool waxaan leeyahay dowladda somaliland ninkaas dib uga fiirsada jagada uu idinku magacaaban yahay iyo darajada uu idin hayo xil uu qaadi kara ma aha umana dhigmo umana qalmo marka intaasaanu kusoo gabagabaysanaya wixii caddayna haddii caddayn uu nagu hayo oo waxa uu sheegaya ay run tahay ama shirkadda ha noqoto ama aniga private siduu ii magacaabay ee magacayga uga caddeeyey golayaasha ha noqoto caddayn wixii noo yimaada garbixiyaan kana laakiin caddayn haddii lagu waayo waxaa lanaa mansabka inuu ku waayo oo mansabkanuu ku doontay baasha in lagaga qaado waayo qof dembiilaah oo saas ummaddii dembi uga dhex dhalinaya miyaa wanaag u keenaya in laysu wanaagsanaado laysu qalbifiyoobaado dadku isu soo dhawaadaan waa maya waxaa leeyahay somaliland in deegaanka ay day doonayaan deegaanka inay wax ka helaan yaysan qaadanin in deegaanka ay kusii kala caynayaan dadka ee balmiina nin macquul oo u dhaama oo wax u soo dhaweynaya ka qaataan laakiin ninkan nin wax masali kara maaha marka anigu waxaa leeyahay somaliland dib uga fiirsada ninka caddaynta uu sheegaya weydiiya hadduu caddeeyo garbixiyaan noqona wasiirka howlaha guud ee somaliland jooga isagaa laga raba caddaynta haddii laga waayana waa intaa idin sheegay waad ogaan doontaa dadka yaqaanaana taariikhda way yaqaanaan ninkaasi waa nin kugu diraya shir iyo bashaxaad waayo hadduuba heerkaana gaadhsiiyey waa wax walbaa ka suurooba marka waxaa leeyahay ninkaa ka fiirsada way وهجاج اللهم صل على محمد وادي السلام يا مر لباد مر صدحات مر أفراد مر شنات وذيك مقضية وحوي دولة الصومال اللي واحد تاجنتها إني بعض جرته لمن كان واحد اللي قد لي هو بعض نسي وهم جور النسي واش مركي ويدور إذن ما هينا وذيك مقضية اللي يري ونمن أرجع حساب الله شقيا ونمن شبهت بود لكن دلتي معمولة وسمينيا سومالي لان بيربنا الدميان ده هوله دي مقرنيسا للاودي أيه هالكي كبلابه مركا تاسي واحد دليل وتاي واحد اللي هذا سومالي لان هنا نيشرين دولة إيه معمول إيه دستور إيه شرعي إيه قوانين تدولي جادون كل السعوديين يعني ماشي تشرين تاسا كو عدينيس قوليستهم مال فردها SNM oo aan biyo isku shibin oo sideedii aan daahirin oo wali qorigii iyo wixii sidato oo bahdilan oo wareersan ayaa meesha idinka muuqato wad u jeedaan walaalayaal Cabdirashiid Ducaale Qambi Muuse Biixi uu shaqeeyaa dambi allaaliya halkaa wixii ka dhaca Muuse Biixi iyo dawladdiisa ayaa ka mas'uula iyo inta SNM halkaa la fadhida haddaba su'aasha meesha taalla waxa weeye warqolyihiinan beelaha darafyada la yiraahdo dulliga intaa leeg intee baad qaadi kartaan dulliga intaa leeg intee baad qaadi kartaan tankiinu intee buu leegyahay goormaad gaadhaan halka ugu dambaysa aad odhan doontaan enough is enough waan daalay wax dambe oo laygu shubo meel uma hayo goormaad odhan doontaan waa dhaqaale burburin weeye geelow waa lagaala dagaalamay diintii baa lagaala dagaalamay ودستوركودا وادي أركو وحول بو حلالي ناقتو ناق وشكان سنكرتا نكو نم وشكان سنكرا هداي دونا وشكور سنكران وكوي أنسحية دلقة هدلي سنة يورما يكي كوري وحقي الدين توادي أركو أبربت لقى تاقي يعني واحد مقالة هذه تولد هذا كدعة هديو كدو وين واحد دستوركودا كقران واد سايستان
shalay waad maqlaysay doodii ka dhacaysay magaalada la yidhaha Hargeysa gabadhiina Carmiye iyo rag la jooga iyo nin aanu isku class ahayn oo in adeerkayo ina Xasan Bisad la yiraahdo Xasoow la yiraahdo wasiiru ahaan jiray Daahir Riyaale wasiirka cadaaladda iyo haygaas oo dhex fadhiya baan ka yaabanahay dooda laga doodaya waxay ahayd Somaliland yaa jinsiyadda Somaliland ما بترول يدمن يلول والله غير جسيد اللي سكدي لا يا محيط ما شاء الله كلا ديرينا يا كنت افدي ارجيس صومها حي هلا markaas adigu doodii markii la galay baa gabadhii baa macnaysay Somaliland jinsiyadeeda ama dhalashadeeda qof kale waxay tiri Puntland waa ajnabi bay tiri wala doo fiirso waxay tiri kilanka shanaad waa ajnabi soo laba ma koonfurina waa ajnabi bay tiri marka ayaan ahayn ajnabi Somaliland de inta reer Somaliland aqliga inta leeg baa meesha yaala ana daga kilanka shanaad oo nin dhul baanta ajnabi waan kugu noqonayaa Sooma Puntland niman gahayla la yiraahdo iyo niman kale oo fara badan Abdiraxiin iyo niman la yiraahdo iyana daga ceer gaabo iyaguna ma ajnabi waa marka micni waxa weey waxaan isaaqayni waa ajnabi ba laga xishooda in la yiraahdo laakiin nasiib darro waxa oo aad iyo aad uga damqaday ninka dhul baanta isaga wasiirka isku sheegi jiray oo isagu dhex fadhiya meel isaga lagu faqooqayo meel discrimination yaalo isaga banaanka la dhigayo others laga dhigayo ayuu iska dhex fadhiyaa dood meel ila dood meel ay kaaga furan tahay doodda la taga doodda aad kala bixi doonto waxa aad doonayso ama doodda aad geysan doonto la taga waxa weeye haddii ba ay taagan yihiin ba Somaliland waxa qofka isaaqa meesha doonaa ku dhasho ilaahu South Africa ku dhasho ilaahu Guyana ku dhasho ilaahu ku dhasho China ku dhasho isagoo automatically waxa weeye waa Somaliland dadka kale meesha degan ninka Samaroon Ethiopia degan kala gashanaa degan waa ajnabi kan wasiirka hadda baada lagu haystaa waa reer buu loo xuduudka wixii ka sheeyo dega marka waa ajnabi soo islaam ma yani qiyaas xumada reerka isaaq la yiraahdo iyo aqli darrada iyo meesha gaaban ay wax ka eegaan baan aad iyo aad uga yaqiiqsoodaa waan ka xishooda hadallada qaarkood inaan ka daba idhaado waayo aqliga kama fakaraan cali guray baa wax laga hayaa wuxuu yiri daaroodkana ilaahay aqligiisa maskaxda u galiyay buu halka madaxa ugu jira annagana wuxuu yiri caloosha iyo inta maaragta halka hoose ayuu ku jiraa buu yiri wallahi ninkaas been ma sheegin iyo billahi iyo tallahi waayo waxaan socdaa u daliila waxaanay kaga hadlayaan idaacadaha doodahan bilaa macniga ee maaweelada caruurta aan ugu bixiyay ay maalin walba furanayaan ba u daliila war baarlamaankooda oo doodaya wali nimanka ma aragteen ma se dhageysateen war wallahi waad yaqiiqsoonaysaa ma tag baa ku qabanaya adoo meesha miyay xigmadii ka dhamaatay meesha dadkii fiyoobaa ee miirka qabay miyay suuleen ma dad waalan baa meesha ku nool war meesha alaysa minkum ya rabbi waaye waxaan u soo noqonayaa waxaan maqlayay warsangeligiina laasqorayo dhulka dagaal baa ka dhacay oo waa kano marka nin bay wareysanayaan oo Somaliland u shaqeeyo marka wuxuu leeyahay qaar deegaanka u dhashay oo Puntland ay soo dirsatay baa sidaa sameeyo kan sameeyay labada sameynaya waayo laba dhowr maadeer kanna wuxuu ku amaanayaa ma wuxuu u doodayaa kuwan jeegaanta yeesana kii kale ee xaq ku socday magacii iyo dhulkii deegaankii iyo wixii siitay wana ayuu eedaynaya simply because qolo u shaqeeya waa umala waa traitors way waa dad lagu shaqeysto waa dad dameer iyo dadnimo lahayn waa Salebaan Ali Koorihi shalay toole meelaha wuxuu ka lahaa wuxuu yiri alxamdulillaah rabbil caalamiin caadaasan taaganahay wiilo idaacaddan aan maanta wasiirka ka ahay waxaan xusuusnaa 84kii anagoo waashimaanka wardiyeeka marka meesha waashimaanka ka aha ayaan maanta wasiir ka ahay ka warramo war allaan idinku dhaashay ma waxaasa nin dad nasabnimo iyo reer ka soo jeeda daraawiish ku abtirsada
ما أفو جيابة أفكاس ما أفو جيابة ورمحادش سومال المحيطة ودن اللي يغانا ما وفقير وي ما قدام درقان وي ضدكم هرقشوي ودقاونته والله يوحيان ما شفتوا ما العيد لا يبلغوا فريسي واللي يروي يساقها ممكن دورة درباحية لا تكالت دالة أنا تسكي علين كرين المادير تاوي هاي كوي برلمان كوي تشري انت الله سوق بتلا بهدلة جالك اللي قريدي حصانة دي لقى قاضي أو شرعي الله مري على قراني هاي هل كانت شوكتو برا اللي قرنا قد فكر فير ما تفكريو كبح مش ايوه ايوه دالي اول ما نجا بني ادم كادقناي ورموحات كفان تابا ورحيدي قرمه يدين كتغتي وردميركي قرمو سيدا يدين كدنتي ورددنمدي سيدا يدين كدبتي هاي إن الدعاء لقنبي بل أرادو إن المدركة إن على داره وتجو لعق بعض كسوقات هاس أرد كسوقات نوعك هدو كوديدو وحوي يرجع حسد يقول لا شقيان إنه هدو كدعوينه شبابنا وأكو إنه قال بوري ماشي اللي يرادو بوهرنا اثنين تيبو فليي مالتي دويتين مصبيحي لو دندونيين الأركوني كله يفرماتشو رجيل سيد درايبوها لكون دول بانتا اللي يسكون رئيسية مركز الدونيين مقرنسة دارود كاي سومالي دا كان يلا بير لحوصدو اللي يقو وچكو مالا سومالي وبيرو رواتيين سومالي منين لابدا سا كان كي كلا محل رنشري كي رماد دبده كان مقعويالك رماد دبدنا ماهي فرطون يساقي يبالا سيسيرا عشو مركز اللي دويل كلا بتيقو تيهين بل ميلاها اللوقية دا انتاد قشان وعترابتو قعلي نيكي كالا إلا يرفر يسو xogaa haddii kale bishan bay jeegi heli mayno shaqadu nageeriyahay inaadeer aabbaha iyo aabbaha midna been ma sheegi jirin faysay ya marka ogow inaan biyo xalaala ka yimid aanan isbedelin ya marka hadal walba halkiisaan dhigaya soo maad garan waa kuwii de markay farmaajo heleen waqti la soo hadleen waxaa soo carar muusuq soo cararsan big markiiba watii iskeenay كانوا واحد لا كولانتاي نيكن ماشي مري كروشوف اللي يدادو وقاسي ما ياش السراء كمدا هاس oo isku reerayihiin kii buu barta lacag dhiga dika la shirkadiina oo idinka ciidanaya kiina wuxuu yiraahdaa lacag baad iga qaado maayo od musabbiix u geyso wallahi aad iga qaadaynay billahi taala ku noqon ninkii ku soo dirsado waxa jawaab ku soo ngooy hargeysu yimid oo wuxuu yiri shirkadahaas waa tugtugi dhashay argagixisada oo dhan bay caawiyaan haddana niman argagixisa oo dhul baanta oo jabhad samaysta bood iyo halkaas ayay taakulaynayaan waka warqoodina xeradin mooxaasa dawlad lagu sheegaa warmataasa cid ictiraaf u keenaysa warmataasa Somaliland dadka ku nool ilaahay ku beeray ku ay ku qasban yihiin midayn karta warmatii shalay toolaha musabbiixi walaalkiiba ummad ilaahay oo dhan oo isaaqooda dhaxdiisa oo reer samatarkooda Saad Muuse dhul ay lahaayeen ka qaado ku haysta oo madaxweynihii baa la laaba dhul dadku haysta tii oo kale ayaa laga sameeyay lascano ay nilay madcan baasho meesha xaraan ku haysta waa tuu dadka halka baabi oo dumiyo wax walba isaga qaatay dhakool mid la yiraahdo iska fataalo markay doonaan na xidhaan markay doonaan dhulbaanta ku soo fasaxaan isla waa kii yimido isagoo ciidamo wato isla xaafadoodii halkaas galo dhulbaanta kale uu soo xaqo cagaf iyo balaayo mari hal lagu dagaalamaya calanka Somaliland iyo ciidanka Somaliland yaa lagu la dagaalamaya dad ay ku sheegayaan inay reer Somaliland yihiin ay ku qasbayaan waliba inay yihiin الوالدة انت هلاقاك الوالدة انت هلاقاك ورعقل قيمه والصومال ورسنجلي يدل بهنتو ودون يسادنا واحد دون سهريا بينك عبر صد عدد الشو أي إذا كان ربي ستيرو كذا شيء رهان أدمالو البكوسو فسحلان وضدعنا سيدي مركا هنت كوهنتي كرتا دتك قلبي جودي مسكحدود hearts of and the minds of the society سيدي بد كوهلي كرتا سيدي بد مركا كوهلي كرتا سيدي بان أنيجي أدو كنت نميل سرعة على نورك راورتو ده النسية ونقع الناي أنك إسكحنا سوالي ده كلا كونه سيدي بد كوهلي سه ورعقلك وحقوي ذيك جتشرة
ma halkii cali gure sheegay iyo meel kasii hoosaysa oo aanan magaceeda sheegayn ayaa caqligu idinkaga jiraa miya ku cibro qaata ragga aad meesha ku haysataan waa ragga hanka yar leh ee ina ducaale qambi ka mid yahay ee ina cali koore ka mid yahay ee ka baarlamaanka idin fadhiya uu ka mid yahay waa gebigooduba waa intaa iska dhaaf kambaniga weyn establishka corporate war annagu markaanu hargeysan nimaadnay baadnaga qaadi jireen oo qaarkoodna ugu hanjabi jira waa ku xidhi doonaa ilaa halkan anaa kaaga adag haddii kale baadna sii marka waa maxay sidkaasi waa maxay dowladda noocaasi maxay tahay sidee baad dowlad u sheegan kartaan qowlaysataa tihiin dad dhintay baa tihiin snmt oo aan beesmarin baa tihiin waxba 30 sannadood dowladnimo kama idinaan baraan nasiib daro sidaad u wada hadlaysaan waad maqlaysaan shalay tole ninkii la odhan jiray faysal cali waraabe madaxweynihii aqlabiyadda lagu doortay ayuu wuxuu lahaa waa khaynol waddan oo tug dhalay farmaajo lacag soo siiyey oo somaliland waa kaa iibshay sacab baad u tumaysaa adduunka kale waa qorgooyo madaxweynaha haddii aqlabiyad kusoo baxo la doortay wixii isaga lagu yidhaahdo waxa weeye dadkii doortay oo dhan baa la caayaya shicibkaa la caayaya waddankaa la caayaya calankaa la caayaya war dowladnimo waxaad ka taqaanaan ii doro dowladnimo maxaad u taqaanaan xagaadsa ka taqaanaan war ilaahay dadka qaarna wuxuu abuuray inay taliyaan qaarna in ay loo taliyo ayaa ilaahay abuuray adduunyada ilaahay u dheeli tiray adeerow kuwii loogu talagalay inaad talisaan ma tiidine kuwii in loo taliyay ahaa ee alla ugu talagalay baa tiid waayo dee maskax keeni kartaa laba habrood oo meel isu keen ma jirto in adeer waxaad kala fadhiisaan mooyaane idinkiibaa hadda kala yaacay dardaarankii cabdiwaraabe ilaahay mar buu idin soo diraa nin kaana ma dhegaysataan war daaye buu yidhi war duriyaddan iyo qurunkan iyo waxaanaad la wareegaysaana beentaa joojiya war ummadda ilaahay dhex gala war dadka haynaga saarina war hayna single out garaynina war hayna isolate garaynina war inaga daaya may duriyadda waxaan ahayn markaasuu war hadda berri idinkaas cuni doona ilaahay muxuu qadar inay gam iska siiyaan halka ay taagan yihiin maanta hore uga hadlay isagu 30 sannadood ka hor buu ka sii hadlay bartan gaariyaa ka sii hadlay halka ay maanta taagan yihiin where are you Somaliland waa اعترافيا واكن Somaliland جنسيته وانت إساقون هو إساق ما هبر مجال لي يهدي بكرة هبر حبوشات ما كين جورج بقبي ومركها هو دين حلكي وكتجي ويلو غيبي عروتي دي انتو ينالا شوقي ما تقانان انجليز كانت كل دبتان 1884 iyo 1916 تقول حيسميها قرانيسا واللحدة سنوات إيه لحية 10 سنوات واللحية 7 سنوات بينالا شوقي هرتيميان يسارترين هرتيميان داروتشرين هرتيميان هوية شرين هرتيميان دقل يمرفل شرين شريروان ميانا شرين لحوين ميانا شرين مديوان ميانو شرين ومدي لهولن سميانا شرين دولكي سوماليا ماهين شنطة الصوماليات أشكتان ما شرتي هل صوماليات بقولي كذا شنطة هو شن قيبود ولا كلا قيبية مركا تاريخ ذي نيوردان أنتو كوبتان لحية 7 سنوات تين كارتا إذن عيشتون بايلاي ولي إذن كو هينيا صوماليا متباهيد لمن باي مدو شن كدقو كلا قيبية شنتي سهرالي كمان ناناين 7 iyo 6 سنوات بين نقو قالتي ولي بقى نقو عنو صدن كميدا dagaal ku jirno u dhimanaynaanu laga bax idinku isaga u shaqeynaysan aygu dhalay ee halkayna kala dhigay ilaa imikana isagii baad ku dhadhabtaa day ingiriiski baa xuduud ka dhigay ingiriisku damooyada buu qabay ay dhalaw diir caado sar cadaalada waa dhulkeena isagii faransiiska iyo talyaanigu maxaad ugu dhadhabaysaa hay ciise kuma dhadhabaan faransiis iyo nimanka gadabursiyo dhulka ka haystay talyaanigii koonfuraystay hawiyo ku dhadhabaya talyaani maqlib maysid war waxaan gaarka ingiriisku idin siin jiray maxay tahay waxaan gaarka ingiriisku idin siin jiray waxaan garanayn oo idin gaar ayaa jiray noo sheega cilada garan weyne marka warniyo dib isugu noqda islaamnimo wad ka tagteen soomaalinimo wad ka tagteen dadnimo wad ka tagteen
meel allaaliya meelaad maraysan ma jirto meel allaaliya meelaad maraysan ma jirto xusbiyaal baa la furay xusbiyaal baa la furaya xusbiyaasha ayaa loo furaya soddonkii sannadood ay jirtayba 3 xusbiyo isaaqa jiray iyagiiba hadda laftoodii dood ka qaba markii la yidhi waa laydin dissolve garaynaya si ummadda kale loogu soo diro halka ay taagantahay wadigarka faysal cali warame halku caydu gaadhay wadigarka cirra uu la taagnaa raalli buu ka ahaa waxa faysal yidhi idinkiibaa laba u qaybsan habar jecla iyo nimanka le habar awal waxay qaateen xusbi kulmiye la yidhaahdo soo kow maaha habar yoonisna waxay furteen mid wadani la yidhaahdo mid yaroo biiga halkan ciidan galo masale warsna laangaabka hadday noogu soo daro garxajista nooga dhiga isaaqeen saddexdii kale hadhay iska masaakiinta yaryaraa baa la yidhi xaggan soo raaca iyaguna waxay raaceen halkaa iyo wadani bay raaceen iyo intaa garxajis iyo xusbigan dawcid la leeyahay iyagii baa sidaa kale ah xaggee ka bannaan oo laga soo geli karaa reerka le reerku markuu han leeyahay oo deeq leeyahay oo dadnimo leeyahay oo dad ururis leeyahay ayuu yidhi warballinoo fereeriye ciyaarta oo dadku ha ka soo qayb galeen dee waa dhaantada dhinaca qolo waliba dhankeeda ha ka qabsato ma jirto ilaahayba uma abuurin fakarka noocaasa allaba kama dhalin qof kastaad u tagtaad isaaqad aragto weli waxaa kugu filan dee annaga hor durriyadii annaga reer shaxaada war reer maas waxa reer shaqaa maxaa tahay waxa allaaliya waxaa tahay ma jirto maxaa tahay reer shaqaa xaggee carab baad sheegan jirteen carabnimadii socon weyda irir baad sheegataan irirkii idin diidiyo ma naqaanaa le irirkiyo waxaad sheegaysaan dir baad sheegataano warnama soo gashaan baa laydinku yidhi kind of losers dhan walba idinka haysasteejiyey waayo dhan walba dasaad uga cararaysadeed meel haddaad istaagtaad garan laaday cid walba colaad baad gashatay kii xabiibku waa kii ku dacadaa kii xigaal aad wadaagteen cid walba colaad baad gashatay you're going nowhere xini baa waaliya ila meeraysaladii aan isu bixiseen baad saasoo idinku isku meeraalaysatee reerihii kalena gadabursiga iyo nimanka ciisana waxaad isticmaashaan ay idinla joogta markaasaad u dirtaan marsay soo qastaan boorame iyo halkaa iyo garasa ilaa seelax iyo dhulka hay annagana dawaaba kuwana waaban hadda watan haas baa la taagan yahay haas weligaa maqli maysid nin isaaqoo sharikadda dahabshiil xumaan ka sheegaya koste iyagii baa ku xidhan waa dhaqaalahoodii annagana ay dhalay baa laga dhameeyey orodoo reerkiina u tago waxaad doonto kusoo dheh oo soo cay waxaad doonta dheh adiga maqlaya in haas lagu sheegay inay argagixiso la shaqaysato can you imagine marka adeeroo dhulbahanto dhulka alla idinla gooye anigu daalayo naftiiga baxday goorma dadnimadiinu iyo damiirkiinu kacaya goorma waxaan aniga ii muuqda idin muuqan doonaa goorma sidaan u ficiloonayo aad u ficiloon doontaan oo u damqan doontaan goorma dulliga diidi doontaan sida aan u diidayaan uga qaylinayo goormaad quursiga lagu hayo ka hoos bixi doontaa goormaad ka weynaan doontaa soo kabdacaysa maaha waxa halkaa lagu saaro inaad afka kaga qaadato goormaad dayn doontaa oo sidii nasabkii aad odhan doontaa waryo waan kula simanaya indhahayga iyo indhahaagu sidaa haysu qabteen hoose hay eegin anna sare kuu eegi maayo goormaad garan doontaan markaa reeraha kale xashalila warsagelina mid odhan maayo idinka raggiina warsagelay meesha jooga idintaa laa taasi inaad intaasoo kale reerkiina u quudhaan ama aad ku tidhaahdaan kuwa gadabursiya kuwa ciisana waa kadaalig ma dhibaan nimanka ah oo iyaga laftoodu waa sidaa ma garata laakiin anigu reerka iyaga waa odhanaya markayga waa odhanaya kalana baydhin maayo alxamdulilah ilaahina waa ogyahay in qalbigaygu saliim yahay daacadna aan ka ahay waxaan leeyahay ahey snm extortionist regime waa rejiimka baadda gurta waa jabhad nimankani weli jabhadnimadii bay ku jiraan markay jabhadda ahaayeen bay reer miyiga iyo xoolaha intay ka qaadaan ayay xoolaha iibsan jireen si ay de rasaas iyo xog u iibsadaan geeljiraan layn jireen wuxun boobi jireen dhici jireen meelaha intay u yimaadaan argagixin jireen wallaahi bilaahi tallaahi been idin sheegi maaye aagga aanu degnay ceergaabo maalin bay intayna soo galeen bay ilaa 10 kun oo geela dareersadeen iyo intaasoo kun oo ari ah markaasay geeljiray laayeen oo dumarkii laayeen oo cagta sii mariyeen
اللي هو نمان قاعدشونية نمان حشودة ما نمان ضد نبالة ما نمان ضمير لما أي نوع عاصي الإحسان نوي كوش قيستان هو ويردان رأسي أكالك غيرك يجيسو كرباش أنكو يرد العسينة إير أنكو قدر إنتي يرد هذا ستة حلك لاين أسيب دروتها وروان إذا السلامة ينتي نقدان كتمد دمان صاحب ذي كان هذا جعلها يو وايد وحي الصعد عليكم السلام إذا ما ولا كره سلامة هذه صدرتين ما قرأتين مناي واد مغلسة من عبد الله واد مغلسة نماكي بعض ما مريان شركات دي أفريقيا ده نقوين شركات الصومالية وشركات ده نقوين تدي وين ومالتي بليون دولار establishment وين ما قرأت هاس مدو حليلة كرامها لكن واحد كفير ستا ولا دون فيرسو هاس بيزنس كده الصومالي أردن بيكولها مقالة أنا جاس ستيشن كلها هيد مامول أنا كلها هيد حديثة ما تشوفتو ولينا اللقمة شيء وحا سيمبولي واباد إنه غاضة لابد هدي عدل الشيء جاي نرجع حسي براي مثلا يلا شغيسو الذهب شيل صوته هو قوي بنشري كل شالة وحدة كلقوا بابين يسوت ملايين تدقي لكن لقوا حسوق كل شالة صوته سعود الدقي ما صوته حلي وانا ذا يد حمر كقرحين هي لعدي صومه أي سادة قدام بيسي إلى أن عرستي كنا الله سيه يا ديكشيل هديجانينا ديكشيل كيف هو هذا مركي تري وتلي يوريني خارجية نكتر بك مركي هو عوي سوالي ذو حكم ما هذا فلاري قال شكا قام فوقه نكي عيب له عيب له نكي لقو يقين له نوان كان إلهي بقى قرقاري إلا إيه ساوث أفريقيا أي أدل دلان شلالك وكمبانيجا كلية لوجولي أفريقيا إيست أفريقيا أردن إنه شلالك سود جتشيو أو ديستريبيوت غرايو مركز all the way إلى سنترال أفريقيا ديستريبيوت غرايو وكمباني حلال كل سموي حلال لجو أبوري حلال لجو سمي نكي إسكالهانا الله نحرس صاحبك عبد الرزاق على دار إلى نحرس تيجنوكسي نندرسيا وإلهي يقانا والدنيا ونكسبوها الله يرحمك يا أخويا. Rest in peace my dear friend. هذا ولا الكيسات شوقة والكي كم معمولة وحي ما قرأته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وحبوا النقل مايو إن الدعاء الغنبي. قولها يا ريال أقول لك والله أنا وحبوا النقليني بالله تالله. بنتلان أنت كلين بكبض أن أنت كلين سومالي لان. مياد مغشين بنتلان وحق حقنس. بدل برايو كشيء يسميه مغشى قلمدوك بيكولي ميلا ركتين قلمدوك حق ناس وما هرشة باللي كولي يبقى حق حدا ميلا ركتين وما حمر بيكولي بندر بيكولي يدو حلقة شيء يسميه مغشى وما هو سدادك بي بقول بيكولي نلقايو نمك عراري نلقى دقلي من فلي دقان إلا يشوف باللي إلا يجدو يملول بيكولي عد تاجرتم ويعد كارت ما دام شفتو عرورها أقونت أردن إجيء الصومالي أردن إيجا كفالة قطعي أقونت أردن سكول دودا عند دودا دركود إيجا بحية ملول بمساجد خيرات أو كنيسانيو يعير لوجا قدار وحول بوسميان نيكي أوجي نيكي أنا أوجي نعاو حكي ضمبه باريتان أوجل شركة دهاس واحد لولك وقبضه هذا الكيو حكي سوق جبجبي نيكي هذا اللي كروشوف وحيل ورنيكي كدم ما هو ورباط السيا مياد سليدين ببلدن إذين كين كرا إساقو إساق تاهر الله وشاقي حتى وحكو قادنا يا نادر هراي وقاد الله هراي اللي ورافرت إذن لا تشوف إنما مثلا ورهدي أيضا كجو أنت تسومالي اللي دون يصير أيس لنا تكتل لسان دوري توين جراد بنو لنا كالاي أو جوش ذو كالاي الله فريستا هاي بدله inay hargeysa faysal caalwaro ila garaadada dhulbaantay isimadooda halka kacay sida wuxuu doono uu ka yiraahdo ilaa dad wadin dhaqan leh maaha hadhow waxa lagu raayaa wuxuu ka dhashay niman le reer guuleed oo saldanadu ay saaqo wakaas warninkoodu saldanad ka dhashay oo ma aynu caytamo in gumeed un bacaytama ka saldanada aad sheegaysan lafteeda ay calaamad su'aal saaranta ya marka dib isugu noqda saaqo anyhow
waxaan u malaynayaa intaa inaan maanta kusoo afjari doono haddii la haydmo